السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركلة سود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنتوا سبتي وأنا لبي لباتنك بيش السديدات أغسطس سنة كلبض كون إيا اللحية لباتنك muuqaal kan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago dadka Soomaalida ee green card kale oo inta ay Afrika aadaan 6 bilood ka badan maqnaanaya arinta haweeneydan waliba ayeeyada ku dhacday oo kale ayaa kugu dhici karta marka waxaan rabaa inaan sheekadan aan idin la wadaago sidoo kalena waxaan dadka green card ka codsanaya waxa jirtay sharci dawladdu ay soo saartay oo la yiraahdo public charge dadka ku tiirsan lacagaha ceyrta ah amaba barnaamijyada dawladdu ay bixiso hadda kadib yaa green card ka loo ogolaanaya yaa loo diidaya sidoo kale waan idin la wadaagaya maxkamad federaal ah oo maalnimadii shalay ay diiday amarkii madaxweyne Trump uu ku joojiyay in viisayaasha la siiyo dadka ka imaanaya 75 wadan sidoo kale waan idin la wadaagaya waxa jirtay sidoo kale dad loo masaafuriyay wadamo Afrikaan ah oo Liberia ay ka mid tahay oo qaarkood markii la geeyay ay diideen in diyaaradii ay ka dagaan laakiin haddana la qaaday oo wadan kale oo Afrikaan ah la geeyay xoogna diyaaradii looga dajiyay dadkaasi wadamaday ka kala yimaadeen ayaan idin la wadaagaya iyo muxuu yahay heshiiska wadamada Afrikaanka iyo dawladda Mareykanka ka dhaxeeya oo ah inay aqbalayaan dad aan wadankooda u dhalan in wadamadooda la keeno arimahaas oo idil ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhawaada haddii aan ku bilaabo dadka Soomaalida ee green card ka haysta isla markaana marka ay green card ka helaan isla markiiba inta ay laabtaan wadankii ay ku laabtaan soo jooga wax ka badan 6 bilood amaba sanad soo jooga arintaasi hadda kadib ma jiri doonta waxana aan idinkula wadaagaya arintan haweeneydan waa haweeney ayeeye ah oo wadanka India asal ahaan ka timid magaceedu waxa la yiraahdaa Finketa Fasamseti waa 59 jir sanadkii 1999 ayay wadanka visa ku timid kadibna green card ayaa la siiyay ku dhawaad muddo 30 sano ka badan ayay wadanka Mareykanka ay ku nooleed haweeneydan sidoo kale waa ay shaqeysaa waa macallimad caruurta baahiyaha gaarka qabo ayay waxbartaa gobolka North Carolina guri ayay leedahay canshuur ayay bixisaa wax dambiyana ma aysan lahayn xitaa traffic ticket ma aysan lahayn haweeneydan marka dalkeeda India oo asal ahaan ka timid ayaa sanadkii 2022 ay u safartay si aabaheed oo xanuunsanaa oo daa ay uga taxadirto marka xil intii ay maqneed cudurkii coronavirus ka ayaa dhacay marka waqtigii ay soo laaban lahayd waxa ay ku darsatay bil marka waxa ay ku soo laabatay Mareykanka bishii February ee sanadkii 2023 7 bilood ayay maqneed qofka green card ka haysta Mareykanka 6 bilood ka badan hadii uu ka maqnaado marka uu soo laabanayo immigrationku su'aalo ay weydiin karaan reinspection ayaa lagu sameeyaa wax la leeyahay waxa daayacday deganaashadaadii rasmiga ah ee wadanka Mareykanka aad ku haysatay marka qofku 6 bilood ka badan hadii uu maqnaado immigrationku xaq ay u leeyihiin inay wax ka weydiiyaan sababta uu 6 bilood ka badan wadanka uga maqnaa oo green cardkiisa maadaama ay tahay inuu wadanka uu deganaado markaas kadib haweeneydii waxa la yiri waa daayacday deganaashadii rasmiga ah maadaama 6 bilood ka badan wadanka aad ka maqneed sharciga immigrationkana sidaas ayuu dhigayaa 180 maalmood ka badan qofku kuma maqnaan karo marka maxkamad ayuu kiiskeedii tagay garsoore ayaana waxa uu diiday 19 May ee sanadkii 2023 ayuu kiiskeedii dismiss ka dhigay oo baabi'iyay maxaa yeelay dawladdu waqtigii loogu talagalay ayaa cadeymihii ay ku soo bandhigi waysay marka waxa jirtay in ICE ay check in sameeynaysa haweeneydan markasto marka 12 bishan hadda aynu ku jirnay Agosto ayaa waxa ay lahayd in ICE ay check in kii loogu talagalay ay iska xaadiriso markii ay tagtay marka waa la xiray isla markaana hadda waxa ay ku xiran tahay xabsi ku yaala Georgia marka halka check-in ay ka sameeynaysi waa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina halkaasi oo ay deganeed qareenkeeda marka waxa uu maxkamadda ka codsaday bal in cadeyso sababta loo xiray maadaama kiiskeedii dhinaca green card-ka horay maxkamadii ay meesha uga saartay isla markaana waxa hadda garsoore uu ka dalbaday dawladda maadaama haweeneydan ay ka macaan qabto isla markaana daawooyin joogto ay u baahan tahay in la cadeeyo sababta loo xiray wasaaradda amniga gudaha marka waxay leedahay qofkan waxa uu ku xadgudbay shuruudihii deganaashaha ee green card-ka uu haystay sidaas darteed in ay hadda xiran tahay waa dooq iyadu ay sameysay marka iskeed ay isku masaafurin kartaa marka arintan waxaan uga gol leeyahay dadka Soomaalida ah oo inta iska baxaan 6 bilood ka badan iska maqnaanayo leeyahin green card ayaan haystaa intii aan rabo aan maqnaan karaa green card-ka waa laga cishan karaa waana lagu masaafurin karaa inta maxkamad lagula tiigsado maxaa
yeelay green cardka waxa loogu talagalay waa deganaansho rasmi ah qofku wadanka inuu ku joogo haddii uu baxayana 3 bilood ilaa iyo 6 bilood uu wadanka ka maqnaado ama bil ama 2 bil hadba adigu intii aad doonto marka haweeneydan waa ayeeyo waliba 59 jir ah weligeedna dambi ma aysan gelin waxa waa canshuur bixiye waana macalimad haddana marka waa ay xiran tahay oo xabsi ayay ku jirtaa sidaas ayaa qareenkeeda iyo caruurteeda ay warbaahinta ay la wadaageen dhinaca green cardka haddii aan eego waxaan ogeyn dowladdu inay amar soo rogtay la yiraahdo public charge oo ah dadka ku tiirsan dowladdu kaalmooyinka ay bixiso amaba barnaamijyada kala duwan ee dadka lagu caawiyo ayaa waxaa hadda ay soo saartay amaro kala duwan waxa ay dadka hadda kadib green cardka codsanaya baaritaano dheeraad ah ayaa lagu samayn doonaa waxaana la kala ogaan doonaa qofkan ma qof si shakhsiyana ugu tiirsan dowladda mise waa qof madax bannaan marka public charge waxa uu yahay qofka dowladda kaar caafimaad ka qaata kaar cunto ka qaata ama guri kira dowladdu qayb ay ka bixiso degan in hadda kadib la eegi doono laakiin arintan ma qabanayso dadka qaxootiga iyo dadka magagaleedoonka laakiin waxay qabanaysaa dadka lamaanaha caruurtooda iyo waalidiinta iyaguna muwaadiniin ah ama caruurtooda hadda kadib keenaya marka waxaa dowladdu ay sheegtay in ilaa iyo 5 qodob ay fiirinayso marka qofka green cardka uu soo codsado foomka la yiraahdo I485 oo hadda dowladdu foom cusub ay soo saartay bisha soo socotay September 18keedana uu dhaqan galayo marka dowladdu waxay leedahay marka uu qofku green cardka uu soo codsado saraakiisha immigrationku waxay xaq u leeyihiin in ay fiiriyaan qofkan muwaadinka Mareykanka ah ilmaha uu dhalay iyo sidoo kale hadiiba xitaa qof ehelkiisa uu dowladda caawinaad ka qaato qofka soo codsaday ma aha qofka soo codsaday hadii uusan dowladda waxba ka qaadan xitaa qaraabadiisa iyo dadku u dhow ayaa la eegaya dowladda wax kaalmaha ma ka qaataan sheekadan waa sheeko la yaab leh sidaas darteed 5 qodob oo dowladdu ay eegayso la qiimeynayo oo saraakiisha immigrationka ay qiimeynayaan waxa kamid ah marka qofku uu soo codsado da'diisa ayaa la fiirinaya macnaha qof aan shaqayn karin miya mise qofkan kulay ma aysan sheegin da'du inta ay tahay caafimaadkiisa ayaa la fiirinaya qofkan xaalado caafimaad oo joogto ah ayuu qabaa waa sidee waxa la fiirinaya waxbarashadiisa heerkiisa waxbarashadu intay gaarsiisan tahay xirfadiisa ayaa la fiirinaya iyo sidoo kale family ahaan financial ayaa la fiirinaya qofkan dhaqaale ahaan muxuu haysta marka dadka marka ay yimaadaanba wadanka isla markiiba dowladda caawinaad weydiisan jiray oo aan shaqaynayn oo shaqaan aadaynin hadda kadib green cardka inay helaan waa ay adkaanaysaa marka dowladdu waxa ay sheegtay in arintan ay tahay public charge kan uu yahay mid aan la aqbali karin dadka caawinaadda dowladda ku tiirsan oo iyagu aan madax bannaanayn arintaasina sidoo kale waa arin kale oo muhiima oo dadku loo baahan yahay inay eegaan marka qodobada inta dadka la aqbalayo oo green cardka aan la siinayn iyo sidoo kale kuwa la aqbalayo waa kuwan halkan ay soo saaray aad ayay u fara badan yihiin marka qodobada ugu muhiimsan ayaan hadda ka soo qaatay halkaasi ayaad ka akhrisan kartaa sidoo kale waxaa jirta shalay garsoore federaal ah oo fariisata New York oo magaceeda la yiraahdo Janet Fargas ayaa waxay gabi ahaanba meesha ka saartay amalkii horaantii bishii January maamulka madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka ka imaanaya 75 wadan in viisayashooda aan la process gareyn karin garsoorahan marka waxay tiri arintaasi gabi ahaanba waa sharci darro waxayna sidoo kale awoodii ka xayuubisay wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio waxay sheegtay sharciga federaalka immigrationka marka la eego National Immigration Act in qofka halka uu ka yimid iyadoo lagu salaynayo in visa loogu diido iyadoo aan wax sababa loo haynin arintaasi waxay ku tilmaantay mid gabi ahaanba sharci darro ah 75 wadan Afrikaan ayay u badnaayeen Latin America ayaa ku jirta waxaana sidoo kale ku jiray wadamada qaaradda Asia intooda badan marka waxay tiri in qonsuliyadda process gareynta viisayaashii ay process gareynaysay in meesha laga saaro iyadoo aan wax sal iyo raada aan loo haynin arintaas waxay ku tilmaantay gabi ahaanba mid sharci darro ah markii hore ma aysan ku jirin dadka dalxiisayaasha iyo ardayda dadka viisayaasha ku imaanaya laakiin hadda kadib dadka isku dacwoonayay lamaanaha isqaba dadka caruurtooda u dacwoonayay in maxkamaddu amarkaasi ayay soo saartay laakiin maamulka Trump ayay ka go'daa inay aqbalaan iyo in kale waxaan ognahay horey kiisas fara badan oo maxkamada ah oo looga soo horjeestay maamulka Trump inuusan u hoggaansamin oo kii qaxootiga uu kamid ahaa marka hadda garsooruhu amarkaasi ay maalnimadii shalay oo jimco ahayd
ay soo saartay. ugu dambeyntii maamulka madaxweyne Trump waxay wadaan masaafurinta dadka sharci la'aanta marka wadamo waxaa jiray diiday inay dadkooda loo soo celinayo ay aqbalaan. Mareykanku marka waxa uu heshiis la galay wadan saddexaad oo wadamo kale oo aad u fara badan oo dad aan u dhalan wadankooda la geynayo. Arrintan hadda waxay ka dhacday Liberia ayaa waxaa loo masaafuriyay toddobaadkii hadda dhammaaday 20 qof. 20kaasi qof markii ay ka degeen Monrovia caasimadda Liberia 15 ka mid ah diyaaradii waa ay ka degeen, laakiin 5 ka mid ah ayaa diiday inay diyaaradii ay ka degaan. diyaaraddu waa tan idin muuqata oo aad arkaysaan dadka marka laga soo dejiyo in basas lagu qaado iyadoo la waardiyeynayo hoteelkaasi la geeyey oo xitaa hoteelka albaabkiisa ciidamo ay joogaan oo halkaasi lagu waardiyeynayo. marka 5tii qof ee diiday inay diyaaradda ka degaan haddana waa la qaaday oo waxaa la geeyey magaalada Malabo ee wadanka Equatorial Guinea. waa ay diideen haddana in ay ka degaan. xoog ayaa looga dejiyey marka dadkaasi diyaaradii markii ay diideen inay ka degaan. 5taasi qof 3 ka mid ah Kuuba ayay ka yimaadeen, halka sidoo kalena hal qof oo nin ah uu ka yimid Brazil, haweeneyna waxay ka timid Cameroon. iyadoo waaba Afrikaano Afrika ayay joogtaa, laakiin dadkan ka yimid Kuuba iyo Brazil oo laga tuuray ka waran Equatorial Guinea. waxaa jira sidoo kale wadanka kale ee Central African Republic in la geeyey dad fara badan oo iyaguna wadamada Latin America ka yimid sida Honduras, Colombia, Ecuador, wadamadaasi ka kala yimid, isla markaana Serbia iyo ay ku jiraan iyo sidoo kalena wadamo kale oo dhowra. nin Eritrean ayaa ku jira oo xaaskiisa xitaa muwaadin Mareykan ay tahay oo canugu u joogo oo Maryland isaga laga qabtay, isla markaana wadankaasi Central African Republic laga. marka dadkaasi ma haystaan xitaa wax dokumentiya haddii ay doonayaan inay wadankooda ay ku laabtaan. waxay noqonaysaa in safaaradahoodii ay tagaan, la cadeeyo qofkan inuu wadankaas ka soo jeedo, markaasi kadib haddii xitaa waraaq go home la siiyo uu qofkaasi wadankiisii ku laabto. marka arrintan waxaa lagu tilmaamay mid aad bini'aadanimada uga baxsan in maamulka Trump dad wadan aysan afkooda aqoonin oo wax xiriir aysan la lahayn in loo masaafuriyo, isla markaana weliba diyaaradii haddana xoog looga dejiyo markii ay diideen inay ka degaan. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.